dadka mideeyay sida wasiirku sheegay waxa uu fariin u yahay argagixisada waxa ujeedkoodu ahaa in ay ummadda baqdin geliyaan laakiin taasi marna ma dhacayso in ummaddii hal mar intay wada midoobaan ay gurmadka meel uga soo wada jeestaan waxay jawaab u tahay ama bay muujinaysaa in dadku aysan ka daalaynin wax walba oo cabsigelin aanaysan qaadan doonin sida wasiirku uu sheegay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa ka go'an in ay wadankooda horumar gaarsiiyaan nabad dhaliyaan nabadaasna ay ka imaanayso in marka argagixisada la iska baabi'iyo meel kasta ay joogaanna ay shacabka iyo ciidamada ay qayb ka wada qaataan sidii loo baabi'in lahaa dadkuna u bilaabi lahaayeen noloshoodii caadiga ahayd hadafkaasi waa midda aan wada leenahay waa midda aan wada jeedno waa tan keentay maanta in shalay wixii dhacay kadib ay ummaddii meel uga soo wada jeestaan aan loo kala harin gurmadka waan u tacsiyeynaynaa mar kale ummadda Soomaaliyeed intii shalay wax ku noqotay argagixisadana waxay heleen fariintoodii ahayd in shacabku ay weli soo taagan yihiin diyaarna u yihiin in ay noolaadaan nolol wanaagsan ku noolaadaan oo ay ka baxaan hagadaamada haatan ay argagixisada wadaan ummadda waxaan ugu baaqayaa iyo shacabka Soomaaliyeed in ay sii wadaan gurmadka walaalahooda xaaladdan hadda taagan iyo isla markaana ay wada shaqayntooda noqoto mid keeni karta in dhammaan dadka waxyeelooba gurmad loo fidiyo guddi ayaa la sameeyay oo golaha wasiirada ka kooban oo ka shaqeynaya sidii caafimaad iyo daryeel loogu heli lahaa dadkii waxyeeloobay arrintaasna meel fiican ay inoo maraysaa waxaan filaynaa ilaahay inuu guuleysiyo insha Allah